waxaan helay shaqo maybe waxaan u baahday inaan upgrade sameeyo صح for example waxa laga yaabaa inaan 6 bilood ku shaqeeyo sanad 2 sano ku shaqeeyo laga صح. yaabaa desk ila saad sheegtay ilaah baa ii qadaray صح. inaan goal ka gaaro maxaa ii xiga waxaan rabaa inaan expand gareeyo waxaan rabaa inaan taqasus gaar ah sameysto baan u صح. baahanahay ها taqasusaadkaaga waxaa ka mid ah dabcan qofka markuu inta sys administrationada iyo سيس ادمن sys adminka ندوكينج sys adminka haddii aan dul tagna isaga laftirkiisa ma haddii aan in deep dive u sameyna اوكي ني هورتا سيستم ادمنستريشن وwax alla wixii quseeya operating systems iyo servers waan gartay operating systems ka marka waxay kala yihiin Linux waan gartay iyo Windows waan gartay so operating systems ka marka si kala baxaya waan gartay waxay si kala noqonayaan serverska oo Windows serverka sida Windows Server 2022 waa hadda kamida badan la isticmaalaa 19 kana waa la isticmaalaa 25 na waa soo baxay korun soo baxay wuxuu soo baxay last year sanadkii la soo dhaafay October uu soo baxay laakiin teknolojiyada ayaa waxay tahay server hadduu hadda soo baxo ama operating hadduu soo baxo waxay qaadataa 5 sano in kamanidu ay u wareegaan sababtoo ah waa in la cilad bixiyaa dad lagu tijaabiyaa marka dadka ku waa lagu tijaabiyaa marka Microsoft markasta way cilad bixisaa markii uu solid noqdo marka shirkaduhu ma iska wareegaan hadda fiiri Windows 10 wuxuu soo baxay 2015 kii soo baxay 2025 end of life uu yahay so 10 sano cimri uu leeyahay so shirkaduhu marka maadaama lacag badan oo intaas oo 100,000 ay ka bixiyaan license kaliya sanadkii ma ay bedelaan si quickly uma bedelaan waxay sameeyaan baa waxay tahay horta way ka caana maalaan waan gartay toga sano horta waa la dhaarina markay meel saaraan operating system ay kadib upgrade sameeyaan markay teknolojiyada ay ku qasabto sababta rule waxa jira if it's not broken don't fix it haduusan ciladeysnayn haddii shaqaynayo adiga sidiisa u dhaaf weeyaan marka sys adminka markan yahow cilmiga ugu muhiimsan oo qofka horta loo baahan yahay inuu barto oo haddaad rabto in aad sys adminka xataa hadda laba loo sii kala qaadayaa oo sys admin waxaa jira traditional sys admin iyo sys admin wata cloud computing sababtoo Microsoft qof waliba qoorta inta qabatay ayay waxay tiri waa Microsoft Azure in la isticmaalaa faa'iido badan ma ku jirta Microsoft Azure waan ka hadli doonaa waan gartay oo cloud computing markaan galno si fiican oo hadli doonaa laakiin hadda sys adminka waxa ugu muhiimsan oo qofku loo baahan yahay inuu barto horta marka koowaad waa inuu yaqaanaa operating systemka client-ga ah Windows 11 ha noqdo Windows 12 ha noqdo dadku waxa dhici karta inay isla socon laakiin uu soo socdaa Windows 12 hadduu sanadkan dhamaadkiisa soo bixin 12 wuxuu soo baxayaa sanadka dambe bilowgiisa waa inuu marka labadaas qofku yaqaana Windows 10 maadaama uu qad ka baxay ayaa Windows 12 la soo saari doonaa oo features badan la socdaan marka oo Microsoft website-kooda release date ku jira hadda rabtinada waa just information weeyaan waxaas oo kale cilmi ma si fiican marka qofka horta waa client operating systems inuu yaqaano waliba ma ahan laptopka isticmaal yaqaana waa sida as a administrator ahaan sida loo maamulo oo client-ga wax kasta oo ku saabsan security-giisa iyo wax kasta marka intaas barato ayaa waxa u gudbaysaa Windows operating systemka serverka ayaa u gudbaysaa serverka marka waa inaad really aad u barataa oo serverka hadda Microsoft ayaan dhanay waxay joojiyeen shahaadooyinkiisa oo qofku hadduu rabo inuu shahaado ku qaato serverka waxaa jiri jirtay shahaado MCSE la yiraahdo oo aniguba maaragtay Windows 2000 aan ku qaatay Windows 2000 iyo Windows 2003 ayaan ku qaatay MCSE-deeda laakiin ma aan meesha ku joojiyay Windows 8 baa soo baxay Windows 12 Server 2012 baa soo baxay Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 22 25 marka waa inaad update markasta isku samaysaa oo markastana khibrada ku kordhaysa markaad barato marka serverka oo meel kasta oo tagto any enterprise environment u shaqaysid Windows Server way isticmaalaan lagama maarmo sababtoo ah markii laga hadlayo userska markay rabaan login in network ku sameeyaan waxa authentication-ka u sameynaya waa Active Directory Active Directory waa database Windows operating system serverku markan enable laga dhigi karo waa service oo domain controllerka uu ku qabanayo okay markii aad taas barato aniga waxaan dad kula taliyaa meeshaas ku istaagan sababta adduunku Linux ku shaqeeya the world is Linux worldwide Windows-ka enterprise-ka ku egyahay laakiin markii data center la tago markii maalin kasta waxaan isticmaalno hadda telefonkan hadirtaan aad isticmaalaysid waa Linux based
cameradan hadda waa Linux based oo operating system keeda kernelku waa Linux waxa aad arkay sidoo hore oo badhanka aad taabanaysid ka duwan operating systemyada laakiin adduunka operating systemka loogu isticmaalka badan yahay markii laga hadlayo maaragtay deviceska like web serverska hadda 70% adduunka website arkaysid waxay ku dhisan yihiin waa markan Apache iyo Nginx labadooduna waa Linux marka Linux waa important marka waxaan kula taliyaa qofka ayaa waxay tahay horta Linux plus baro oo waxa ku baranaysaa Ubuntu iyo Alma Linux iyo client-yada ku baranaysaa dan kadib waxa u gudubtaa mid ka weyn oo Red Hat administrator Red Hat ku qof waliba ma barto waa macduun cilmigaas qofkii bartaa waa ka dhex socnaanaya dadka sababtoo ah waxa tahay qof levelka loo baahan yahay jooga Linux Red Hat operating system waa enterprise operating system ayaga dhan waa way ku jiraan waa markan koorsooyinka aan ku dadaalnay inay dadku maaragtay ay ka faa'iideystaan oo kamid yahay oo waliba Red Hat wuxuu soo baxay Ramadaankii hadda kan hadda soo dhaafay oo soo baxay marka asagoo up to date ku jira markan website balse anigu qofka maybe dadka daawanaya waxay u maleynayaan inaan maaragtay dhahayno hurbad anigu waxaan dhahaa qofka meesha wax ka baranaysid badso ha isku ekaynin hal meel sababtoo qofka wax baranaya adiga weeyaan aniga maaha marka maadaama anagu laakiin hal mid aan sameeyno waxa weeyaan luqadda afka Soomaaliga aan kugu diyaarin oo taas aan la heli karin meel kale laakiin hadaa tahay qof yaqaan afka qalaad oo raba inuu ka soo qaado kale waxaanan haynin raba inuu barto kabahan cimaamadan ag dhigan waa inta wax soo barato bari dib noogu soo celisa anaga aan ka baranaa moogtahay marka anigu taas aan aaminsanahay marka administration marka infrastructure kiisa waa intaas